وحساك سمي مدهرات يوقع عبانيان دليرة دقمة مردوغو كاونتيغا Tana River يغو شغي إن أي هلين كاركالو يقانا كيباندها يدالكني كينيا بريهاني دنبه وحاسو بدني عباشada ay suubinayaan dhalinyarada ayagoo ay sheegay inay helin muddo badan kaarka aqoonsiga ee dalkani inta badan kibaandhaha ayaa lagu xujeeyaa wiilasha iyo gabdhaha taasoo keenta in ay mudaharaadyo sameeyaan dhalinyarada Tana River ayaa isugu soo baxday degmada Madogo waxaana hadaladoodii kamid ahaa Wali Hussein waxaan yahay nin deegaanka Madogo ku nool nin dalkan u dhashay dhibaatada maanta meeshan aan u soo banaan baxnay waxa waaye ajiliya ID card sharciga Kenya lagu joogo dhalintan sida hadda arkaysi nin walba wuxuu haystaa sharci 10 sano hadda ka dambe la soo dhaafay ku wuxuu haystaa sharci 8 sano ah ku wuxuu haystaa 7 sano kii u yara 3 sano haystaa kusugna sharciga Kenya wuxuu sheegay 2 bilood hadda dibka kale oo jiro waxa weeye qofka haduu wato sharci sanad dhaafsan dawladda Kenya u gaarsanbo maxay ka dhigan muxuu intan ku maqay kaadigan muxuu intan sano aad u haysata tana waa nugu noqotay maalin kasta in ilmihi la qabto in maalin kasta ilmihi police ay dhibto markan annaka hadda maanta banaanbaxa la sameeyay waxa ugu badan ajiliya ka idlaan kaadiganna wuuna dhibe muddo yar iyo muddo dheerbo dadka wuxuu ku rafaasan yahay waiting card wax la siinaya bas adiga lagu hilmaamo wax kale ku og male markan dawladda Kenya waxa uu sheegaynaa maanta wixii ka bilaabato banaanbaxan aan sameeyay maanta ugu yar وأنسى بري إلى بري دمبحرنا برا أنا نقولينه جاري كينيا مودي ماله كو أنتوا قلنا ماله إلا دوينا نعرفكم هاي لهذا واحد واسكير وإنفورميشن يربعهم بحنا مقعيدة وحلدها عمر عيديد وحيا نندقان كانوا لش نندقان كانوا لش رمضوغو ألكنا كل شيء وحكا عوانا هنا كباندا كتامبليشو ومعنا مدة قادته دلنتنا كتامبليشو والودي ده معنا وحلسيا كوسك qaarkood waxay wataan kusug 5 sano aniga qaasi aan xaaskayda wuxuu wataa kusug 4 sano wataa meel kasta ka raadi ma imaato kusugta markii nala siiyo waan ka daba galnaa habeen iyo dharaar kusug kala lagu siinay qof waxa jira 4 iyo 5 kusug wato oo kibaanana u soo bixin dadkii masaakiinta tooda waa la reeba marka waxaan u cawanaynaa dawladda Kenya dhalinteena shaqo la'aan ku dhacday shaqo aad sharci wadan lagu maqoray loon ma qaadan kartay loonti dhalinta la siinay meel amari karto male hata gaarstan dog magaari kartay hadii oo sharci wadan iskuul university maadi kartay marka dawladdan ka codsanayna inay kibaandana siiso oo dhalinteena meelay ka ooman yihiin ku dilaga soo oon bixiyo kastoo ahaato kibaandaha ayaa waxa uu yahay mid looga baahan yahay nolosha Kenyaanka in aad u tiro badan haddii ay jirto dhinaca guurka dumarku ma helayaan caruurtooda dhalashada wadanka ilaa ay hooyada ay haysato kibaande Samsam Abdikariin Universal TV Madogo Tana River County